Assalaamu calaykum. Waa idin salaam meel walba aad joogtaan. Dhaca loo geysto meheradaha iyadoo la isticmaalayo farsamooyin cajiib ah waa mid waayadii dambe aad ugu soo badanayay guud ahaan dunida, ha noqoto wadamada aan muslimiinta ahayn iyo kuwa muslimiinta ah sida Carabta iyo xitaa Soomaalida. Maanta waxaan soo qaadanaynaa mid ka mid ah muuqaalada laga duubay iyaga oo xirfado cajiib ah ku dhacaya dukaan dahabka lagu iibiyo. Ku soo dhawaada mowduuceena maanta. Ninkan da'da ah ee boorsada wata oo u muuqda qof safar ah ayaa xilli salaad ah goobtan ganacsi ee uu rabo inuu dhaco laguna iibiyo dahabka ayuu wiilashii dukaanka iibinayay oo meesha xiraya si ay salaad usoo dukadaan. Waxa uu ka codsaday inuu boorsada meesha dhigto si uu isagana salaad usoo dukado. Maadaama ninkan u muuqday nin wanaagsan, da'na ah, way iska aamineen oo albaabka ayay u fureen. Boorsadii ayuu gudaha dhigtay, masjidka ayayna wada aadeen. Dhowr daqiiqo kadib, boorsadii waxaaba kasoo dhex baxay wiil yar oo uu odayga ku watay boorsada si inta salaada lagu maqan yahay uu wiilkan yar uga shaqaysto dukaanka, wixii uu kari kara oo hanti ahna ugu soo guro boorsada. Wiilka yaraa sidii qorshaha ahayd ayuu sameeyey. Qayb walba oo dukaanka ka mid ahna wixii dahab ah oo yaalay ayuu wuxuu awooday ka soo qaatay, boorsada ayuuna ku soo shubtay. Wiilka yar oo u muuqda qof xariif ku ah dhaca iyo tuuganimada, tababaradii uu soo qaatayna ka faa'iidaystay, ayaa sidoo kale lacag caddaan ahayd kala soo baxay khasnada dukaanka, boorsadana ku cabaystay. Sidoo kale dahabka qaybo ka mid ah ayuu qoorta sidii tusbixii ugu rartay boorsadiisii ayuuna ku laabtay. Salaadii ayaa laga soo wada laabtay wiilashii dukaanka joogay iyo odaygii tuugga ahaa oo laga yaabo intuu salaada ku jiray inuu ku ducaysanayay in qorshihiisa uu hirgalo. Dukaankii markii dib loo furay, odayga ayaa yimid isagoo uga mahadceliyay ixsaanka ay u sameeyeen oo ahaa in qorshihiisii ay u fududeeyeen. Ayaa boorsadii gacanta ku dhigay oo macsalaameeyay. Wiilashii ayaa shakiyay, waxay fiirfiiriyeen dukaanka, tuhun ayaana galay. Odaygii ayay celiyeen iyagoo u sheegaya in alaab badani ka maqan tahay iskafaalaha, qasabna ay tahay inay boorsadiisa baaraan. Odaygii oo aad u naxay ayaa diiday in la baaro boorsadiisa, laakiin ugu dambeyn wiilashii oo ku adkaystay inay hubiyaan boorsada ayaa furay. Shakigooda ayaana dhaboobay oo wiilkii yaraa iyo hantidii uu xaday ayaa boorsadii ka soo dhex baxay. Odaygii laadarka ahaa iyo gacanyarihiisana halkaas ayay ku fashilmeen. Daawadayaal, mowduucana maanta halkaas ayaan kusoo gabagabeynaya. Haddii aad ka heshay muuqaalka, fadlan like saar, la wadaag asxaabtaada kale. Waa inoo muuqaalka xiga insha Allah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.